محمد magacayga waa Samatar Axmed Jimcaale halkan waxaan jecelahay inaan u gudbiyo dadweynaha reer Somaliland guud ahaan xalay dhacday iyadoo Ramadaan 3 tahay in beertayadii ku taalay Jigjigeeyar dawladdu ay ku soo duushay oo guuto maratari ay ku soo duuleen oo qabsadeen oo dadkii tan yarta ahaa ee sandaqadaha naga deganaa dhulka la galay oo RRU iskugu jirta iyo dawladdiiba waxaan doonayaa inaan u sheego muddo dheer ayaa argagixisana lagu hayay reer Axmed Jimcaale ahaan ninkii wadaniyo maanta toos baan ku leeyahay horena fariin baan idinku diray ma fahamtay wax sharci oo isitaana warqad maxkamadeed oo nala tusayna ma jirto ma fahamtay marka anagu talaabaan ka qaadanaa wax allaale wixii dhibaatay halka ka timaadana dawladda Somaliland ayaa ka mas'uul ah وصلى الله وبارك dadka baqanaya jeel iyo dil manihin wadankan baanu la xajalo u qabnaa wadankan baanu meel fog uga nimid marka mana istaahilo taan ugu dhacday aniga reerkaygaba ma garatay iyo dadka masaakiintan u naxnay ee bilaash aanu meesha ku dejinay 20 sanadood ما فهمتي شرعي قال مرة حلال افتين بالقشة أفرتيها بينمو ما نتي هذا رمضان أيانا لقى سود الدقي هذا روحنا وقال لي ما قرنا وانو كديدينا وانو كتقالمنا دولة الدحنا هوران وشيء مرنا شرعي بالا تشيفينا يا مرة التلاجي هذا مصعته حق ضروا أيا صعته ونحن نسكي علينا ويح خسارة كي من يجا كمسؤولة دولة الدحنا يا أسكرت أيا كمسؤولة تكلا أسكرت الصومال وحن حاسينها مركو ودنكن دولمي وكجري كما أنت كجري وكله وكجري نينكي قوريغا u horeeyay idin keenay aabahay buu ahaa Axmed Jimcaale gudoomiye Axmed Jimcaale guuleed buu ahaa Nuur Sheekh Isxaaq qorigii loo oran jiray Ethiopia taariikhdiina waa la wadeen ma garatay maanta hiil baan u baahnay saxaafadda iyo shacbiga ma fahamtay anu waxa loo dhan maan seexan dagaalkaasaan ugu socday aaga jugleen baa 2 sano ugu socday amri degdeg baan ugu dhacay ma fahamtay hooyadii xanuun baa ku dhacay nacdo la soo Somaliland marka la soo hadal qaado ma garatay nacay baad idinku hadnaga kasbateen marba beerteedii dhul laga dhacay adeer maxaynu u dagaalanay haddaad gudoomiyini u horeeyay sidaa u dhacasaan ma fahamtay inta kalena waad la socon doontaan warbaahinta kala socon doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu samatar dalka dawlad baa ka jirta intiidan TV-yada hor imanin miidaan sharcigii iyo nidaamkii dawladeed marin si arintan la idinka qanciyo amba la idinka jahil saaro walaal waanu marnay dad sharciga u hanuunsan baanu nahay dad qurba jooga baan maantana wadanka jooga ma garatay waxaanu haynaa waraaqii dawladda intaas oo fulineed baanu haysanaa ma fahamtay oo la iska indha tiray ma garatay dadka nagu haystaa waxay leeyihiin dawladdii siyaad bare ayaa waraaqana siisay cigaal ayaa sameeyay madaxweyne cigaal Allah yarxamu ayaa baaritaan dhaba sameeyay oo isagoon cidna u hiilinaynin oo xaq u hiilinaya oo xaqiijiyay beerta inaanu leenahay dadkii kalena yidhi halkaa ka baxa oo shirkii asaasiga ahaa ee Boorame ayaa buriyay wax allaale waxay dawladdii siyaad bare 69 ilaa 91 hay samaysay ma fahamtay marka halkaas lagu bariyay jasgeerida ku dhacday cigaal daahir yaala naftiisu si sharaf lagu ka yeelay dawladdan maanta ayuunba arintan ugu la kacday oo xaga jugleen 2 sano iyo dheeraad nagu watay ma fahamtay halkankani 20 sano inta aabahay mootanaawa dhibaatadaasaan haysatay ninka la yiraahdo Xuseen Cabdullaahi Ileeyana waa dadka ka dambeeya ee hadhka isku qarinaya ma fahamtay oo dawladdii siyaad barana u shaqayn jiray runta la sheegaa ma fahamtay ninkaas waa ninkii ina sandoon ka iibiyay kamaanu daba hadhin dhulkayga dhibic qudhan ka tanaasulana ma jirto dhulkan taariikhdiisa haddaan idinka sheekeeyo aabbahayo waxa la xidhay 72 wuxuuna hameerkii u dambeeyay Hargeysa 69 siyaad bare markiiba way siireen ma fahamtay dil baa lala doonay xabsi daayin sharaftiisii Somaliland ma badbaadisay ma fahamtay 3 sano iyo badh oo kacaandiida lagu xukumay isaguna nadar buu galay markaasi wuxuu ku galay siyaad bare noloshiisa inta ka harsan inuu la dagaalamo aabbahay uu fuliyay siyaad bare uu ka guuleystay asana uu gudoomiye u noqday
ilaa maalintuu dhimanayay halganka waddankaasi ku jiray ma fahantay markaa maanta intiina loo abaalmarina la siin lahaa intayd yareedna lagu soo doontay uu kontameeyadii iibsaday marba badh la qaatay de waa cadaalad daraan u aragnaa diiwaanaanu ka dhiidhiyeynaa qofkii dhiiglina uu ka dhiidhiyaya taageeraan saydinka baahan wadaniyiinta weli noolow